ከአምሶም ጥላ ስር በፊትም ሰራዊታችን በሶማሊያ በጣም ረጅም ጊዜ የፈጀ የሶማሌን ህዝብ ከጎኑ በመሰለፍ intaan xubinta ka noqonin amisom ka hor ciidamadeenu waxay shacabka Soomaaliyeed ee walaalahan hay u caawiyeen una taageerayeen sidii ay u heli lahaayeen nabad iyo deganaansho amisom anagoo xubin ka ahna muddo 10 sano ayaan wadnay nabadeynta iyo xasilinta Soomaaliya muddadaas aan caawinay shacabka Soomaaliyeed wixii aan horay lacag lagu qiimeyn karo naf bay horeen dhiig bay u daadsheen ciidamadeenu waxay u babacdhigeen cadaadisyo kala duwan ee ka imanaya cadawga bay'ada iyo kaabayaasha yar darteed waxayna hawlgalladaas u fuliyeen si natiijo leh waxaan qayb libaax la ka ciyaarnay dhismaha dawladda Soomaaliya iyo inay doorasho dimuqraadi ah qabsadaan si ay shacabkeedu u maamusho taliyaha oo mahad celiyay ciidamadan oo soo dhameystay hawlgalkii ATMIS ee ka hawlgalaya maxaas wadanka Soomaaliya isla markaan lagu soo dhaweeyay degmada Feefeer ee deegaanka Soomaalida ayaa ciidamada ku amaanay sidii ay u soo guteen waajibaadkii halka u joogeen አመታት ቆይታችሁ የሰጣችሁን ተልዕኮ በጀግንነት ፈጽማችሁ መንግስት በወሰነው ውሳኔ መሰረት ወደ ሀገራችሁ የተመለሳችሁ የአትሚስ muddadii aad gudanayseen waajibaadkii hawlgalladii aad gacanta ku hayseen waxaad u fuliseen si geesinimo iyo kartini ku dheehan tahay soo laabashadiina waxay daba socotaa go'aanka dawladdu qaadatay ee ah in dalkiina si nabad ah dib ugu soo laabataan waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada dalkiina iyo ciidini hooyo ciidankeenu nafhurista ay usameeyeen xaasiloonida iyo deganaanshaha shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda soomaaliyaba waa mid ay taariikhdu xuseyso shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeedba markastoo ay garab nooga baahdaan heegan ayaan u nahay inaan garab joogsano annagu naftii aan u hurnay ciidda Soomaaliya khasaarihii hantiyeed ee soo gaadhay maaha waxaan qoommo ku qabno sababtuna waxa weeye waxaan u qabanay shacabka Soomaaliyeed balse waxa jira qaar kamid ah hogaaminta Soomaaliya oo soo habsaamay oo dhawaan dalka yimid isla markaana aan dalka joogin xilliyadii adkaay dhibaatadu jirtay kuwaas oo ah qurbo joog isla markaana xilka saas ku helay mana ogeyn sida Itoobiya iyo ciidamadeedu u difaaceen shacabka Soomaaliyeed cagahana ugu taageen dawladda Soomaaliya isla markaana aan waxba kala soconin nafhurista aan sameynay iyo qiimihii aan ku bixinay hoosna u dhiga kaalinta Itoobiya ku lahayd nabadinta Soomaaliya anagu soo waxaan aaminsanahay in wixii aan shacabka Soomaaliyeed u qabanay inuu yahay waxaan ku xoojinayno nabadda horumarka iyo midnimada shacabka Soomaaliyeed oo taas wax ka saar mudnaanta ka siinayno sidaa darteed waan sii wadaynaa ilaa halka ugu dambaysa waxaan la jirnaa shacabka Soomaaliyeed waxaan ka shaqaynaynaa badbaadadiisa iyo Soomaaliya inay noqoto dal xasiloon yeelato dawlad adag dawlad goboleedyadu ay xoogeystaan shacabkana laga samata bixiyo weerarada khawaarijta waan sii xoojinaynaa kaalinteena waliba intii hore in ka badan waan sii laba jibaaraynaa shacabka Soomaaliyeed markasta ay noo baahdana diyaar baan u nahay inaanu cadawga ka difaacno